تهليل قنبعتي waxaan ku guuriyay ku nikaaxay ku meheriyay walaashina Raaqiya Cali Xaashi oo walaalkeed oo weligeedii ah uu ii wakiishay arintan meherkeeduna yahay $5,000 Mareykanka ah iyo hadad gursanaysaa shukaasada gabadha wax dhiba male heshiiya wax dhiba male laakiin yaa dhameystiri kara gabadha yaa laga doonayaa yaa bixinaya wareerkeedii ku gursada gabdhaha ogolaanshaha ehelkooda ayaa la yiri waa kana maanta labadii tol ay maaragtay barakallahu liid barakallahu liid عبد العزيز سودان سلام عبد العزيز وبقطويو ديلاوي بشاشة ونايا إسبهايستي بديكو دا جايلكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالشدة الصوماليات وحان كسوغن هاي هولك حفلة إفتن هالكن أو أي كدعضي مناسبة دي نكاحة ولكن تهليل قنبة يولاشين راقيو علي حاشي haddaba waxaan jeclahay asxaabta iyo qeybaha kala duwan ee ka soo qayb galay inaan bal halkan hambalya ka niraano oo aan u duceeyno qoyska cusub ee unkamay haddaba dhinacayga waxa taagan saaxiibkay Cabdiqaadir Cumar Cabdulle Kuwaar Cabdiqaadir aad maasantahay koronto sidoo kale saaxiibada kale ee daawadayaasha karanto sidoo kale salaamaya intaas kadib maanta waxaan u joognay sida aad sheegtay munaasabadii ismaha qoyskan cusub ee tahliil iyo dumaashada Raaqiya waxaan leeyahay hambalyo inta ka soo qayb gashay ajil xasan ka siiyo waa qoys cusub oo soo biiray qoysaska islaamka marka waxaan leeyahay hambali aan leenahay may fanaankeyga asagana waa kan soo dhawow waxaad leedahay tahliil wiilnimadii wuu ka baxay ninuu noqday horta waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalkay korontaada ku salaamaya adii channelkaaga dhammaan asxaabta ku xiran waxaan leeyahay maanta waxaan u taaganahay hambaliyadii walaalkay tahliil qumbo waxaan leenahay guurkaaga guur khayr leh gurigaaga guri lagu nagaaday wiil iyo caano gabar iyo caano intaa kadib hadal ay ugu tuurtay horta kabtanka ugu weyn adoo as dhigi karaa iskaabulada hadda ana hogaaminayo maanta wixii bilaw sama xilka xafladda xil wareejinta iskaabulnimada la socda way dhacaysaa marka kabtanka markuu adig ka soo wareeyo la anigu soo igu maan karaano adig gudoomiye ku xigeenay ay ahayd waxaan siinayaa aad u maasantahay happy bal kawran والله هذا أول فرح سنة ما أنت عروسك ولا لك تهليل قم بديري مرنا معني كيجي مرنا بوسكي مرنا قرب كيجي وحلي عروس وعن وعلي راقين نقدر أركل ونستل ونقعد إن شاء الله أنا هذا يدنك وهم بلينا أنا هذا يدنك فرح سنة هاي أصحابته قاعد بيوفر بدنيهن waxaan idin soo qabanayaa waxa jira saaxiibayaal oo aan maanta idin barayaa dad badan oo inta badan kaamirada gadaasheeda ku barataan hawlo badanna qabto Kaafi Studio hadda aragteen magacyo fara badan iyo heeso badan ay ku qoran yihiin Kaafi waa loo hayaa maanta horta waxaan falaada iska ahaayeen in la sheegi doono banaanka u soo bixi doono isma ogeyn waxaan dhan falaada iga ahaayeen marka hadday laabtino falaadka ma ku socdaa dad badan oo falaado fahmaysa saaxiibkeen waa tagay alxamdulillah laakiin waxaan ku faraxsanahay horta si shakhsiyan ah tahliil qumbe maanta inuu ka xarooday gudigii iskaabulada listigooda ku jiray maanta oo ku soo biiray listigeena Allah barakeeye dad badan ay isag mugtay laakiin iyadoo la sheegay xataa qalbiga xanuunaya automatically waa taasantay kamisun alxamdulillah DJ Jecelow oo isna kamid ah team Tahliil Studio ayaan isagana jeclahay inaan soo dhaweeyo aad buu hadal badan yahay aad buu kaftan badan yahay aad buu sheeko badan yahay soo dhawow hambaliyo DJ Jecelow waxaan ka hormarinayaa abuu nin isagana inta badan kaamirada gadaasheeda istaago hawlo badanna qabto Abu Afnaan hadda meel ku aragteen Abu Afnaan waa saaxiibka dhow ee tahliil dhamaanteena hal tiim oo wadanahay Abu Afnaan soo dhawow waan dhawahay tiim koronto aad baan idin salaamaa waxaan aad ugu faraxsanahay soo qaybgalka arooska saaxiibkay tahliil qumbe Cabdidiiriye waxaan leeyahay hambalyo hay DJ Jecelow waxaan halkan ugu hambalyeynaa walaalkay tahliil marna saaxiibkeeda woo gale anaka ilaahay noo saalo adinka wax la'aan iskaabulmada oo nuureebay xabadii maan la heenin mise wax la'aan ay jirto
حبدي sidoo kale hadda waxa ila taagan nin darawal ah laakiinse inta badan team Tahlil Studio ka tirsan sidoo kale ninkan wareysi ayaa idinkaga ballamin doona wuxuu aad u qaadaa heesaha Soomaaliga just we are congratulating our friend so what do you guys say today What I can say today, today was a great day. I want to congratulate my friend and my boss, Tahlil Toyo, for having made this great day to happen. What I want to say just is to say that I want to congratulate my boss, Mashallah, for everything. So after congratulating, I'm waiting one song of Somali songs. Okay. Which one? Abdaziz. Sudan Salam. Abdaziz wa Bokotoyo Dilawi Bashasha Wanaya Isbahaiste Badigo the Jailka Balbawe Huskisa Gudidigi Saste Balbawe Huskisa Gudidigi Saste Kalbiyada Isuboe Ubihi Lagabeli Karbiyada Isuboe Ubihi Lagaberi Mahanul Kabahaya Mahanul Kabahaya Mahanul Kabahaya wareysi idinkaga ballamin doonaa ninkan heesa badan oo Soomaali ah haya waxaan jeclaa markan Xuseen Aflaanta Studio garabkayga midig inaan soo dhaweeyo maanta ninkii odaga ahaa waa baxdo ninka odaga waa tagay stage kaas la saaray meeshaas maanta waxa waa ninka waa tagay ninka kaamirada noo haaya sugeynaa cali maxallada ninka odaga saaxiibka cali niyo 40 oo gaaray ku dheh meel u socdo ma aqaan kulay ambaliya leena already Dimash Raaqi iyo walaalkay Tahlil waxa leena ambaliyo adina koronto waxaan ku leeyahay shaqo fiican ay sawiralkay inaan wada shaqeyno garabkayga ah muddo aan soo wada shaqeynayno ma sha Allah oo faraxsana maanta laakiin kaamiradu isku fiicnaa ana waxa leeyahay duuba moogi isku fiicni kaamirada maanta waxa ugu tala galay dad badan oo kaamirada gadaasheeda taagan inaan dadka baro ugu tala galay LG alfanaan sheequl kulli ayaan jeclaa markan isagana saaxiibkiisa inuu hambaliyada qayb ka qaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa in salaamay asxaabta meel kasta aad joogtaan koronto saaxiib aan xitaa hadalka isku ma fiicnin isku tiimna waa nahay laakiin maanta farxadda ayaa iga badatay ninka walaalkay Tahlil aroosaayo oo in badan aan isla soo jabnay maanta farxadeeda lama koobi karo walaalkay maxaa leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad buu hambali Dimaashii Raaqiyo ayadana sidoo kale oo hambaliyeenaya dhammaanteen hambali ayaan leenahay waxaan jeclahay hal mar caruuska inaan kaamirada idinku geeyo hal daqiiqo si aan bal isagana qaybtiisa aan ula wadaagno waxaan rabnaa maadaama maanta ay tahay maalintiisii isaga iyo Dimaashii Raaqiyo inaan farxadda la wadaagno isagana bulshadiisa uu farxadda la wadaago Tahlil Studio ninka magaaladan xureystay muuqaalada faraha loogu gubtay aroosyadii oo dhan rakaatada ku qabsaday maanta isagii aroos ah bulshada maxaa leedahay bulshada waa salaamaya bulshada ku xiran dhammaan Koronto Studio waa salaamaya walaalkay marna saaxiibkay walaalkay iga weyn saaxiibkay baar walaalkay iga weyn Koronto Studio iyo dhammaan asxaabtiisa baa salaamaya waxaan leeyahay walaalayaal saadi garab istaagteen ilaahay ni garab istaago aad iyo aad baan idin mahadcelinayaa waxaan leeyahay واسكت دعينا بارك الله بارك الله ليك بارك الله ليك هذه يا اصحابنا السلام هذا رمضان دور معنا ما شاء الله waxaan jeclahay kaamiradeedii inay socoto alfanaashiina miinay iyo hambaliyadiisina aad waxaan leenahay walaalkayna soo dhawaaw horta ani waan soo dhaweey gaar ahaan reer ani dadka millayda markino jiifkoodaan ahay ninka marka iskaabul leeftu ku soo qaatay moogtahay waxaan u imaaday inaan ku soo dhaweeyo qaybtayn waxaan leeyahay suha qaybtayn ku soo dhaweey ana ka baxay sorry inta aad dhaxdhaxad ma tahay war Tahlil soo dhawaaw waan ku soo dhaweynay gacmo furan waxaan leenahay Dimaashdan iyo Tahlil wili aan goori aan ilaahay caafimaad siiyo labadoodaba jecelkoodana aan noqdo jecelkii oo wiligooda ba insha Allah kaamiradeedina aan markano adi farxadii aad u fara badan asxaabtuna aad u fara badan tahay wali waa la isku hambalyeynaya ugu dambeyntii maxaa kula dardaarmaysaa inta iskaabulada
iskaabul waxaan leeyahay leefta soo qaata jiifa joogshiinimiinay waa idin soo dhaweynaa qalbi furan gacmo furan leefta iska soo qaata soo biira ku soo biira tiimkayna diyaar ya diyaar tiimkayna ku soo biira hal aadi waay labo kadib waa mitinkeeda gali doonaa insha Allah waa kana koronto waxaa sidoo kale qadka live ugu jiro oo intii xafladda nikaaxa uu socday aanan qadka ka bixin saaxiib nagu qaali ah walaalkeen cabdifataax mataan social media youtube badanoo idin waala links gale waa kana inta ku jira هذا كل سلام الله أدور وعقول هل مرتاني كاميرا تسي ورته واكس لجنا بجرون لنا صاحب يال وحا هلكن ugu soo gabagabay nikaaxi walaalkeen tahliil studio iyo walaasheen raaqiyo cali xaashi xafladan waa magaalada Nairobi xafladii shiday ayay noqon doontaa waxaa inoo jooga fanaaniin uu ka mid yahay walaalkeen xariir axmed sidoo kale waxaa isna noo jooga walaalkeen cali dhaanto waxaan sidoo kale xafladda arooska ka maqnayn fanaaniintii magaalada Nairobi iyo fanaaniin kale oo ayaguna marti ku ah arooskan waxaa looga yimid dal iyo dibad adeerkii tahliil isaga Mareykanku arooska dartii ugu yimid marti sharaf fara badan jiro waa inoo habeen dambo iyo xafladda arooska oo aan dhigi doono wacdaro aroos aan horay Nairobi uga dhicin ayaan dhigi karaa haddaba la socda waxa habeen dambe ka dhaca magaalada Nairobi